waxaa jiray nin dadka waraabiyo oo la oran jiray Maxamed. Dadka ayuu ka iibin jiray biyo, weliba asaga oo ku wareegaya wadooyinka iyo suuqa. Dadka oo dhanna way jeclaayeen akhlaaqdiisa wanaagsan iyo nadaafadiisa awgeed. Maalin maalmaha ka mid ah, ninkani dadka biyaha ka iibiyay ee Maxamed waxaa maqlay boqorkii. Wasiirkiisii ayuu ku yiri, orodoo ii keen Maxamedka biyaha iibiyo. Wasiirkii ayaa soo baxay asagoo ka raadinaya wadooyinka iyo suuqa ilaa uu ka helay Maxamed, wuxuuna u keenay boqorkii. Boqorkii ayaa ku yiri Maxamed, laga bilaabo maanta kama shaqaynaysid qasriga dibadiisa. Waxaad ka shaqayn doontaa qasrigayga, waxaadna waraabin doontaa martidayda. Kadibna waxaad soo fadhiisanaysaa agteeda adiga oo iga sheekeynayo sheekooyinkii aad ku caanbaxday. Maxamed ayaa ku yiri, haye boqorow, warkaaga waan qaatay waana ku adeecay. Maxamed wuxuu yimi gurigiisa asagoo xaaskiisa ugu bishaaraynayo warkii farxadda lahaa. Maalinkii xigtay wuxuu xirtay dharkiisii kuwii ugu quruxda badnaa. Wuxuu dhaqay ama uu xalay weelkii uu biyaha ku siin lahaa martida, wuxuuna soo aaday dhinacii qasriga. Kadib wuxuu soo galay qasrigii, wuxuu tagay boqorkii ay agtiisa fadhiso marti fara badan. Wuxuu bilaabay in martidii boqorka uu biyaha siiyo. Dabadeed markii uu dhameeyay wuxuu fadhiistay boqorkii dhinaciisa, asagoo uga sheekeynayo sheekooyin qosol badan. Marka la soo gaaro gunaanudka maalinta, waxaa la siin jiray lacagtiisa, wuxuuna soo aadi jiray gurigiisa. Muddo ayuuna sidaas ahaa. Maxamed qasriga ayuu imaan jiray, martida boqorka ayuu biyo siin jiray. Kadib wuxuu fadhiisan jiray boqorka agtiisa asagoo u sheekeynayo. Sidaa ayuu ahaa muddo ilaa ay ka timi maalin uu wasiirkii boqorka u dhawaa uu ka maseeray Maxamed. Wuxuu is yiri, khalaas Maxamed, waxaa jeclaaday boqorkii, adigana sidaa ayaa booskii lagaga tuuray. Boqorka hadda kuma baahno. Maalintii xigtay asagoo Maxamed gurigiisa u socda waxaa qabtay wasiirkii, wuxuuna ku yiri, niyahow boqorka waxa uu dhibsaday urta afkaaga ka soo baxayso. Maxamed ayaa arrinkii aad ula yaabay. Wasiirkii ayuu su'aal u celiyay, wuxuu ku yiri, maxaan sameeyaa si aan boqorka uga ilaaliyo urta afkayga ka soo baxayso? Wasiirkii ayaa ku yiri, waxaad samaysaa marka aad qasriga imaanayso afka mara ku soo xiro. Maxamed ayaa yiri, haye hagaag, sidaas ayaan samaynayaa. Maalintii xigtay markii ay soo baxday qoraxda, Maxamed wuxuu afkiisa ku soo xirtay maro, wuxuuna soo qaatay weelkii uu biyaha dadka ku waraabin jiray, wuxuuna soo aaday qasrigii sidii caadadu ahayd. Boqorkii ayaa la yaabay arrinkii Maxamed. Wuxuu arkay Maxamed oo markii hore imaan jiray asagoo aanan waxba afka ugu xirnayn, oo maanta afka ku soo xirtay maro. Laakiin boqorkii wuu iska aamusay, waxba ma oranin, kamana hadlin arrinkii. Maxamed ayaa joogteeyay arrinkii. Maalinba maalinta ka dambeysana afka ayuu maro ku soo xiran jiray. Maalinkii dambe boqorkii waxa uu u yeeray wasiirkii, wuxuuna ku yiri, Maxamed muxuu sidaan ka wadaa oo muxuu afka wax ugu soo xiranayaa? Wasiirkii ayaa ku yiri, boqorow, waxaan ka baqayaa haddii aan kuu sheego sababta uu sidaan u samaynayo Maxamed in aad qoorta iga jarto. Boqorkii ayaa wasiirkiisa ku yiri, waxaa ku siiyay ammaan, maganteeda ayaana ku jirtaa, kumana dilayo, ee ii sheeg waxa jiro. Wasiirkii ayaa yiri, boqorow, Maxamed waxa uu ka sheeganayaa urta afkaaga ka soo baxayso. Boqorkii ayaa aad ula yaabay, wuuna argagaxay, wuxuuna aaday xaaskiisa xaggeeda, wuxuuna u sheegay warkii. Xaaskiisa ayaa ku tiri, qofka hadalkan dhahay waa beri in qoorta laga jaraa si ay tusaale iyo cibro ugu noqoto dadka kale, ayna u ogaadaan awooddaada. Boqorkii ayaa yiri, waa ra'yi fiican. Markii uu waaga baryay, qoraxduna ay soo baxday, boqorkii waxa uu u yeeray ninka dilka u qaabilsan ee dadka qoorta ka gooya. Ninkii ayuu amar ku siiyay, haddii aad aragta cid ka baxaysa albaabka qasriga oo sidata ubax, madaxa ka gooy. Ninkii uu iska soo tagay, wuxuuna soo aaday xaggii albaabkii qasriga si uu howshiisa u fuliyo. Dabadeed sidii caadada ahayd waxaa yimi Maxamed. Sidoo kale boqorkii ayuu u tagay, agtiisa ayuuna fadhiistay asagoo uga sheekeynaya sheekooyinkiisii hore ee lagu bartay. Markii ay soo dhawaatay bixidiisii, boqorkii ayaa Maxamed siiyay ubax, wuxuuna ku yiri, waa hadiyad ee qaado. Maxamed ubixii ayuu qaatay, wuuna iska soo tagay. Markii uu ka bixi rabay qasriga, waxaa qabtay wasiirkii, wuxuuna ku yiri, yaa ku siiyay ubaxan? Maxamed ayaa ku yiri, boqorka ayaa is siiyay. Wasiirkii ayaa ku yiri, isii aniga ayaa kaaga xaqnimo badane. Maxamed ayaa siiyay ubixii wasiirka, wuuna iska tagay. Sidaa ayuuna uga baxay albaabkii qasriga asagoo aanan waxba la gaarsiinin. Markii uu doonay in uu baxo wasiirka, ilinkana uu taagan yahay ninkii uu soo adeegsaday boqorka, uuna ku yiri, cid kasta oo aad aragto oo sidata ubax,
qoorta ka gooy. Ninkii ayaa meel dheer ka arkay nin sita ubax. Intuu u tagay ayuu qoorta ka gooyay. Maalintii xigtay ee subaxii markii la gaaray, waxaa qasriga yimi Maxamed sidii caadadu ahayd, asagoo afka xiran, sita wiilkiisa biyaha. Wuxuu bilaabay inuu waraabiyo martidii boqorka. Boqorkii ayaa la yaabay Maxamed oo qasriga yimi. Wuxuuna is yiri, oo Maxamed waa la dilay, siduu ku nool yahay? Kadib Maxamed biyihii ayuu qaybiyay. Boqorkii agtiisa ayuu imaaday. Boqorkii ayaa ku yiri, Maxamedow, niyahow maalin kasta afka ayaa soo xiratahay. Waxa aad afka u soo xirato, bal maanta ii sheeg. Maxamed ayaa ku yiri, boqorow, wasiirkaaga ayaa ii sheegay in aad dhibsanayso urta afkayga ka soo baxayso. Wuxuuna igu amray in aan afka ku soo xirto maro si aysan kuu soo gaarin urta afkayga ka soo baxayso. Mar kale ayuu boqorkii Maxamed su'aal weydiiyey, wuxuuna ku yiri, aaway wixii aan ku siinayay? Maxamed ayaa ku yiri, wasiirkii ayaa iga qaatay, wuxuuna igu yiri, isii aniga ayaa kaaga xaq badane. Boqorkii ayaa dhoola cadeeyay, wuxuuna ku yiri, dhab ahaantii asaga ayaa kaaga xaqnimo badan. Haddaba daawadayaal, qisadii quruxda badneed ee dhex martay boqorkii iyo ninkii biyoolaha ah ee la oran jiray Maxamed halkaa ayay ku dhamaatay. Waa ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Fadlan haddii aad ka heshay muuqaalka like saar, asxaabtaadana la wadaag muuqaalka adiga oo taabanaya share. Sidoo kale haddii aad channelka ku cusub tahay, fadlan subscribe taabo. Waa ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Mar labaad iyo mar saddexaadba waxaanu idin leenahay farxad ku waara. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.